ayaa waxaa mar kale gool dhalisay kooxda kubadda cagta Hegan waxaana u saxiixay Axmed Cabdiwili Cismaan waxaa lagu kala nastay qaybtii hore 2-0 ay hogaanka ku hayso kooxda kubadda cagta Hegan qaybtii dambe markii la isku soo laabtay ayaa waxaa daqiiqadii 50aad gool dhalisay kooxda kubadda cagta Gaadiidka waxaana u saxiixay Cabdullaahi Axmed Maxamed oo lambarka 9aad u qaxirta kooxda kubadda cagta Gaadiidka 20 daqiiqo kadib ayaa waxa ay Gaadiidka heshay goolkii barbara ahaa waxaana u saxiixay mar kale goolkiisii labaad ee ciyaarta Cabdullaahi Axmed Maxamed oo lambarka 9aad u xirta kooxdaasi 2-2 ciyaarta oo maraysa 8 daqiiqana ay ka dhiman tahay waqtigii loogu talagalay ciyaarta ayaa waxaa goolka guusha heshay kooxda kubadda cagta Hegan waxaana u saxiixay Cismaan Yuusuf Cismaan 3-2 waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Hegan ciyaarta markii ay dhamaatay kadib ayaa waxaa ka hadlay macalinka kooxda kubadda cagta Hegan Axmed Cabdiraxmaan Cumar waxaana uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay guusha galabta ay kooxdiisa ka gaartay kooxda kubadda cagta Gaadiidka salaanka bacdi runtii dareenkayga aad u fiican yahay waayo koox haddii mar adiga tiim haddii mar ay soo baxdo tartan ay ka qaybgelayso waxay ku hamweyntahay inay guuleyso runtii dareenkayga aad u fiican yahay dadaalka bacdi guushiina ilaahay waxay dhanka kale waxaa ka hadlay ciyaartii galabta dhexmartay kooxaha Hegan iyo Gaadiidka macalinka kooxda kubadda cagta Gaadiidka Cabdi Isaaq Maxamed Cabdi Kuus waxaana uu sheegay in galabta kooxdiisa ay u qalantay in ay ka adkaato kooxda kubadda cagta Hegan marka hore waxaan halka salaamayaa TV qaranka gaar ahaan wariyaasha qaybta sportiga waad aragtaan ciyaarta ay galabta ay soo bandhigtay kooxda Gaadiidka waa ciyaar aan laga sakarin walow ay guush halkeeda tahay waxaan dhihi karaa nasiibka ayaa laga heliyaa maahan kubadna lagama badin kulamada dambe soo socda maxaa leeyahay insha Allah ilaahay duuraa kulamada soo socda waxaan ku dadaalaynaa qaabka hadda inaan wax ka bedelno iyo wax ka fiican inaan soo bandhigi doono insha Allah kulanka ugu soo horeey jimcaha soo socda ciyaaran ayaad arki doontaan isbedelka kooxda kulankani dhexmaray galabta kooxaha Hegan iyo Gaadiidka ayaa waxa uu yahay kulankii ugu horeeyay ee lagu furo horyaalka 38aad ee dalkeena Soomaaliya waxaana kulankani kulanka xiga la ciyaari doona maalinta Axadda Axmed Salaad Shiiqow telefishinka qaranka Muqdisho